maalin nin odaya wax u dhaxlayn qisada igu yaabka badneed waxaan u dhaxlayn in aad hanti badan ka tagay u ahaa marka waxaan ku niri ahalkiisa iyo awlaadiisa war ma soo xajiyay marxuumku waxay yiraahdeen maya weli soo ma uusan xajin xajka ma aad waxaan idee sharcigu sidoo tilmaamayo intaan dhaxalka la gaarin xuquuqda ilaahay maalka uu ku leeyahay iyo xaqa bini aadamku uu ku leeyahay wixii deyna waa in maalka horta laga saaro ka bacdi yaa la dhaxlo marka waxaan idhi xoolihii xajka meel iska dhiga xaj waajib baa lagu lahaa mana uusan soo xajine meel iska dhiga waxay yidhaaheen imisaa lagu xajiyaa waxaan idhi qofka halkan ka tegaya oo soomaaliya ka xajinaya aduu qiyaas waa lacag $4,000 haddii xoolaha markaas la dhexlayay dhowr boqol oo kun oo dollar ah 200 iyo ziyaada ah xoolaha la dhexlay madaxay gacmanta saarteen 4,000 ah 200 iyo ziyaada loo dhexlay marka qoyskaas 200 iyo ziyaada la dhexlay 4,000 ma xoolaha laga jaray warafta ku waalidkiina ku deyn baxay oo ku xujo baxay oo ilaahay qabrigiisa ugu noorinaha waa ninkii marxuumka miskiinkii soo shaqeeyay soo dhididay mid kamida intuu soo boodo wuxuu yiri gacmaha anaga miya haynay walaadow hadduu adagu soo xajinayo ma gacmaha ku dhaganay walaadow anaga ya walaadow aabba hadduu soo xajinayo ma anaga gacmaha ku dhaganayno soo xajinayo wadaadu maalkaan noo qayb haddaadan noo qaybinayno orodoo naga tag yaa gacmaha nagu kuma aanan dheganayn maxay tahay maalkan dhaxalaa loo keenay xaj iyo meesha looma keenin marka waa wax cibro iyo cashar ah way mudan tahay in qofkii caqli leh oo cashar iyo cibro uu ku qaato yani qof walba inta aad nooshahay ka ciil beel cibaadada iyo xoolaha ilaahay ku siiyay ilaahay ugu dhawaad wixii deynoo lagu leeyahay iska bixi inta aad nooshahay ama ha noqdo xaq ilaahay deyn lagu leeyahay ama xuquuq bini aadam oo lagu leeyahay daqiiqadaha yarta aad nooshahay qof walba iska qaddi berri xaalku lama oga soo noqon doono iyo dadka aad wax uga tagi doonto kuwaasoo kala dhici kara inay noqdaan xaaladooda waa aabbahoodba xajkii waajibka ahaa u diiday nag si kasta oo yeelno waa ka dhaadhacsiin weyna waa ka tagay marka adduunyo xaalkeedu waa sidaas walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala mararka qaar markuu ka hadlayo adduunyada wuxuu ilaahay daba dhigaa caqli ma lihidin miya wama alxayaatu اdunyaa ilaa lacibun wa lahu waladaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquun afalaa tacqiluun ya war daarta aakhiro ayadaa khayr badanoo u shaqaysta war caqli ma lihidin miya aw caqligi macnaha aayaddu wuxuu ka dhigan yahay qofkii adduunyadan fikirkiisa u bata ee fikirka aakhiro uu ku yaraado caqli ma jiro xadiis waxaa jiray imaam axmed uu musnadkiisa ku warinayay ee nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku yidhi addunyaa daaru man laa daara lah wa maalu man laa maala lah walahaa yajmacu man laa caqla lahu wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam adduunya waxaa wax u aruursada oo wax u maleeyo qof aan caqli lahayn caqlilow waa midka ay ku taagan tahay berri ninka aan caqliga lahaynna waa midka maanta kaliya iyo caawa maxaad ku cashaysaa bis berri qorshaha uguma jirto waa caqli darrow leannahu aakhiradu inta ay kuu jirto berriya ilaahay uu ka cabbiray yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu اllah waltandur nafsun maa qadamat liqad ilaahay wuxuu leeyahay rabbi ka cabsada naf walibaa hina ha ka fikirto ha ka fiirsato
waxay berri u hormarsan lahayd dhimashadii oo dhan berri aa laga dhigay leanna xaqiiqada waa sidaas waa berriba daqiiqadaha dhan haddii la aruuriyo waa berri oo kale wey degdegta ay geeridu ay kuugu imanayso walidaalika nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi walahaa yajmacu man laa caqla lah adduunye waxaa wax u aruursada oo wax u maleeya qof aan caqli lahayn